gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Maxamed Caraale ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka gadaal markii shirarka kala duwan oo kaga qayb galay magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho iyadoo wafdiga gudoomiyaha ay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo madaxda isboortiga degmada Beledweyne soo dhaweyn kadib gudoomiyaha ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarada uu galay iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay sida la socotiinba halkan waxa ka baxay wafdi uu madaxweynuhu hogaaminayay waxaan tagnay magaalada Jowhar oo anagu qayb galnay shir aad muhiim noogu ahaa gobolka Hiiraan iyo dhammaan Hirshabelle oo ku saabsanaa maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga oo ay soo qabanqaabisay maxaan ku raahdaa hay'adda Mareykanka u qaabilsan kaalmada Soomaaliya USAID oo rabtay inay ku maalgeliso dhaqaale ilaa $70 milyan ah beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliya marka waad ogtihiin gobolkan Hirshabelle wuxuu ka mid yahay gobolada oo priority ku leh xagga badda iyo xagga beeraha iyo xagga xoolaha intaba sidaa darteed waxaan la kulannay waxaan ka qayb galnay shirkii oo socday muddo 3 maalmood ah ilaa hadduu yiraahdo wajigiisa labaadna waxa lagu qaban doonaa magaalada Beledweyne waxaana ka soo qayb gali doona dhammaan inta danaynaysa in la maalgeliyo beeraha iyo xoolaha insha Allah waana ka soo wada qayb gali doonaa waxayna noqon doonaan shir weyn oo gobolka Hiiraan dhaqaalihiisa kor u qaada guud ahaan Hirshabelle dhinacaas oo beeraha iyo xoolaha oo aad noo khuseeya kadibna waxaan ku rahaa waxaan tagnay magaalada Muqdisho iyadana waxaan ka qayb galnay shirar kale oo iyana sidoo kale iska amni iyo siyaasad ah marka maantana waxaan ku soo noqday magaalada Beledweyne Mr. Caraale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale bogaadiyay howlgalo dhawaan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo intooda badan lagu la dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya howlgalada lagu soo qabanayay insha Allah waan sii socon doonaan waana la tacaali doonaa haddii la yiraahdo waxa kale soo dhaweynaa howlgalada kale oo runtii hadda bilowday laakiin sii socon doona waxyaabaha hadda shirka loo hadlay amniga xamar ka socday kamid ahaa in la furo wadada dheer isku xirta maxaa la yiraahdaa Muqdisho iyo Beledweyne mar dhowna howlgalkaas oo bilaaban doona in maxaan ku raahdaa wadada si toos loo furo iyadoo la iskaashanayo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadooda Shukur Maxamed Xasan Zab TV Beledweyne adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida